الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. waxaan aan ka soo baxnay saad ogsoontihiin baa maanta haddana isaan u fadhiisanay saakayto markay 5 saac hadda ay tahay 8 saac iyo 45 daqiiqaan ka soo baxnay shirki aan galnay oo aan la galnay nimankan security-ga ama qaybta amniga u xilsaaran county-ga oo u weyn yahay ninka RC-ga oo regional commissioner-ga ah ilaa iyo county commissioner-ga iyo inta kale oo dhanba wax ka maqan ma jiro. waxaan u cadaynay dhibkan ka dhacay Gaaris shalayto. horta waxaan rabaa intaan aan bilaabin wixii warkayga ahaa oo shir ku saabsan horta waxaan ka hormarin rabaa tacsiya. anigu kulley waad la socotiin shalay ani iyo deputy-ga waxaan joognay Eldoret. shalay markuu wixii u dhacay baan soo ordnay xalay oo dhan baan soo guureynay saakan meeshaan imaanay si aan shirkan u qalqaalino aan u qayb galno. marka horta awalan tacsiya aad u bilaaran baan u dirahayaa dhammaan reerarkii cidihii dadkii walaalaha ahaa ee shalayto culayskaas uu soo gaaray ee maaragtay caruurtoodii iyo ehelkoodii la xasuuqay. taas waxaan kaloo aan raacin lahaa in dhibka intaa dhacay oo u weynaaday kolleyba shaki kuma jiro. xanuun badan buu een badan buu dhaafay ama uu keenay, laakiin waxaan baryaynaa dadkeenna intaan howlahan ka shaqaynahayno oo aan amni aan raadinahayno oo aan hawshan ku jirno in la iscafiyo oo wax tilaabo oo khalad aan la qaadin, inaan waxba maaragtay tilaabooyin oo maaragtay aargudasho ah aan la samayn ayaan codsanaynaa. marka haddaan ku soo laabto qodobada maanta aan ku heshiinay shirkan, waxaan horta annaga aan caddaynay oo aan u caddaynay nimankan security-ga in culayskan intan la eg oo dhacay ayaga ay mas-uul ka yihiin oo dembigeed ayaga ay qaadayeen. maxaa meeshan annagu madax baan nahay, waxay naga dalbaan waan siin karnaa oo waan siinaaba, laakiin security ayaa ku shuqul leh. marka horta number 1 waxaan ka codsannay dadkan dhaalimiinta ah mujrimiinta ah oo ilaahay aan ka cabsanayn oo aakhire aan dan ka lahayn horta inay raadiyaan soo qabtaan. weligeed lama arkin Gaarisa nama soo marin gaari intii la joojiya dadkii la dhahaa ID card keena oo maaragtay gooyn loo kala sooco dad la toogta. waa wax aan weli Gaarisa soo marin weeyaan. waa arrin cusub nagu bilaabatay oo aad u fool xun oo dulmi ah oo marka aniga waxaan dhahnay nimankan hawsha iniga iskala shaqadiina qabsada. waxaan dhahnay sida ugu dhow weliba muddo isbuuc ka yar gudaheeda dadkaas raadiya. haddaad waxday u baahdaan ama gaari ama kaalmo waan siinaynaa, laakiin hawshan dad la soo qabto oo raadiyo nikaasiyaaw shaqadooda ha qabsaan. horta waan ku heshiinay. number 2 waxaan ku heshiinay hub oo khalad ah oo hub maxaa la dhahaa oo xaaraan ah oo magaalada ka buux oo dadka iskala wareegahayaan. meeshan ma aha maxaan ku dhahaa Torabora meeshan ma aha oo aan la garanayn. magaaladan waa magaalo muslim, waa magaalo dad wanaagsan ay degan yihiin, waa magaalo dad ehel ay wada degan yihiin, waa magaalo aan nabadgelyo ka rabno. ma aha inay noqoto magaalo ma dad ay hub la wareegahayaan oo dadka iska dilaayeen. wax naqaana ma aha, waa wax hadda soo gala weeyaan. marka shaqadooda weyn in dadkan hubka wato ay soo qabtaan oo hubka maartay hubka khaladka ana ay magaalada ka bixiyaan ayaga shaqada ayaga u taala. taas waan ku caddaynay way qarteen. marka sida ugu dhow waxaan ku heshiinay in hubkan maartay aan saxda ahayn in magaalada laga bixiyo. intaa waxaan noo weheliyey annaga haddaan nahay county-ga oo dowladda county-ga aan nahay dhowr arrima oo marka aan u arkaynay inay culaysyahan ay sabab u yihiin baan ka hadalnay. anaga noo taalla waxaa ka mid ah gypsum dhagaxan lasoo qoto gypsum loo aqaano oo meeshan laga soo qoto dhib badan buu keenay, culaysyo badan buu la imaaday. horta asagoo dhulka naga dilay oo dhulka nabaad guud ku riday nabaad guud ku riday oo hogag iyo balaayo maaragtay een badan dhulka ku dhaafay ayuu haddana wuxuu noo keenay cartels, gypsum cartels buu noo keenay. marka gypsum intii muddo ah oo aan u tashanayno waa marfuuq. laga bilaabo isniintan soo socoto wax gypsum oo meeshan ka baxay Gaarisa ma jiro. wadada maaragtay bridge-ka Gaarisa wax dhaafay oo gaari oo gypsum wadma jirayba askartina waan ka ayagana siiyaan. marka cidda gypsum ku jirto ama danka lahayd waxaan ku leenahay isdaalinin. isniintan waxay ka bilowdo qalab qaado aayarka hawlo danka raaso irsa raaso gypsum waa joojinay.
number 2 dhagaxan la guro asaga guryaha lagu dhiso oo meelaha laga soo guro isku dagaalama asaga meesha Gaarisa ahaato kuna sakali maaha meel alle meesha dhagax laga soo gurahayo oo Gaarisa guryaha ku dhistaan ayadana inta muddo ah uga tashayna waan joojinay waxa la stone quarry maxaa yeelay wuxuu noqday asagana wuxuu la imaaday culays kale oo isku dagaalamaayba beecsharo wuxuu noqday waala mu noqdaba kuwa soo qodayn kuwa ka sii gadanayeen meesha bay xiranayeen meesha bay reebanayeen markaas dil iyo dagaalka imaanaya waa catalyst dib u noqon ayadana waa joojinayna dhagax dambe oo la qoraa inta muddo oo uga tashayna ayadana ma jirayso number 3 waxaan ku heshiinay muxuu ahaa plot dambe oo hadda maanta laga bilaabo ilaa aan uga tashanayno plot dambe oo warqad la siin allocation dambe u jirayba intaan ka tashanayno ilaa ma aata 2 bilood 3 bilood 4 bilood intaan ka gaarayno anaga aan waxaan aan kala ogaan doono plotyahan la isku waalanayo la isku dilay waa shay maartay oo ninkaas meel isku xirnayo uga garay uga goonayo oo leeyahay ka waan ka garay oo dadka isku laanayo ayada waan joojinay dhulkan waxa iska leh waa community land dowladda maarta mas'uulka ah yani custodianka ama mas'uuliyadda community land waxay saaran tahay dowladda laguma simaayo markaas ninkaas meel buu iska xirnayo markaas ma dadka isku dilaya ayadana waan joojinay wax la dhaho plot allocations ugu dambaystii ayadana waxaan joojinay wax la dhaho dhul la kala gadanayo oo la isku wareejinayo oo maarta la isku dilayo oo la iska xirnayo ayadana waan joojinay askar baan dalbanay in dhulalkan ay shaqadooda ayadana meel lagu soo xiro marka intaas ay sheegnay waxa inta noo weheliyay inaan ku heshiinay labadii police post station ee ku naso iyo burburis ay inaan boobsiino si degdeg aha oo waxay nooga baahan yihiin haday tahay guri aan u dhisno waa u dhisayna in ayagana meesha police ay geeyaan si ugu dhow oo marka muxuu ahaa dhulalkan ay noqdaan dhulal maarta amniga la sugi karo insha Allah taala. I want to send also my condolences to the families of those innocent lives which were lost yesterday. It was a very sad day for the people of Garissa. It has never happened in our situation in the past. Of this kind of killings has never happened here. So we are very saddened that it happened yesterday, and we have agreed with the security agencies that they will take the necessary steps to bring to book all those criminals. All those who've done that kind of heinous acts must be brought to book, and we have agreed as leaders there is nothing called a clan issue here. This is criminals who have no clan, who have no religion, who are not part of us, and their intention is to make communities and families fight. So with that waxaan ku bedelay af Soomaali aliga codsaday waxaan ka hadalay maanta arrimaha ka jiraan Gaaris aad baan uga xumaanay shalay wixii ka dhacay waxaan u tacsiyeenaynaa ummadii familiyalkii laga dhintay aad iyo aad baan uga xunnahay arrinta dhacday arrimihii aan ku heshiinay inay dawladda ay maartay inay ammaanka sugto doonto nimankii maartay arrintan ka dambeeyeen dilkan ka dambeeyeen inay daba kacaan oo soo qabtaan meelay ka keenaanbo meelay maraanbo inay maartay inta muddo yar oo gudaheeda inay nimankaasayto la soo qabto dadkaasayto dad naga mid ma aha isku qabiil ma nihiin isku diin ma nihiin isku jinsi ma nihiin waana ku heshiinay arrintan inay ahayn arrin qabiil laga dhigo ay noqoto arrin cadow kale oo maartay wadanka soo galay oo maartay raba inuu nagu soo duulay nabadgelyadeennana wax u dhimi rabo marka saasaan ku heshiinay maanta arrimaha kale aan ku heshiinay governorka sheegay waxaana filaynaa inay dawladda maartay arrimaha dhulka qaasatan oo maartay dhibkan keenay ayadana inay xal ka keento dhulka dawladda iska leh dawladda xal ka gaari arrintaas ayto dhulka marka aniga waxaan ku darayaa ummadda maartay Soomaaliya maanta walaalaha isku xumaadeen inay iscafiyaan inay isku samraan dilkaana dib ay keenin nabadgelyada ay sugaan sifa aan nabadyadii hore aan ku nooleen aan ku wala noolno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan garab taaganahay anagoo leadershipka Garissa County oo dhan anagoo qabiil fiilinaynin taas inaan u sheego aan rabo tii labaad waan isku umaanay anagoo dhan aan waxyaalahan ka hadalnay waxyaalaha dhibaato u keenaya nabadgelyada Garissa County waa meel aan leenahay waa meel aan ku dhalanay meel aan ugu socono ma jirto waa meel aad aan jecelnahay soo maxaan ka codsanaynaa tii labaad inay dadweynaha reer Gaaris nabadgelis iyo maartay walaal kal jecel
dadka isku maaragtay ku wada noolaadaan qaasatan qoyskan ka umaaday Samawdal waxaan ka codsanay in maaragtay arrintan waa arrin laga tashaday waa arrin go'aan aan ka gaarnay waxaan iga codsanay dadka Samawdal meeshan ka umaaday ama qoyskan ka umaaday Gaarso dhan in maaragtay nabadgelyo aan ku dadaalno waxyaalaha laga hadlay waxa kamid ah oo aad amaad aan ka codsanay gabaniga oo inta soo goor aan ka codsanay waa arrinta gypsumka waa dhibaatada weyn oo noo keentay meeshan nabadgelyada Garissa County aad buu ugu mahadsan yahay arrinta talaabada uu ka qaaday waa ku mahadsan tahay waana governor aan maxaa aaminsanahay 90% haddii gypsum arrinteeda la joojiyay in arrinta nabadgelyada si fiican u soo noqonay midda kale waa arrinta dhulka maxaan leenahay only kuna samo waa meel kasta oo Garissa County in maaragtay dhulashaas la bangeeyo la survey gareeyo plot allocation loo soo sida cadme loo suubiyo tii kale aan ka hadlayna insha Allah maxaa way arrintii police labadan police post oo station laga dhisayo burbur iyo kunaso ilaa qeyrhaas burburis ilaa qeyrhaas governor iyo the entire people arrintaas waxaan rabnaa in si dhaqsimo loo dhameeyo waana ku heshiin arrintaas wixii dadkii dulme oo dadka walaalahayn oo ardayda oo yar oo 14 jirka dilina waxaan leenahay in dawladda 100% talaabo ka qaado waxyaalaha isku heshiina 100% anigoo leaderska maxaa soo baxday arrinta security-ga in ay 100% ka jifteen shaqadooda security apparatus-ka so arrintaas waa ku soo bixinay anigoo leaders maxaan leenahay security apparatus waxa ka cabsoonaysiin ma jirto nin kasta oo meeshan waa equal nobody is above law waxaan leenahay shaqadiina qabsada aniga leaders waa ni taageerayna waana ni garab taagana waqti kasta security team county security team together with the elected members of parliament governor senator and this meeting was geared towards finding a lasting solution to the insecurity in Garissa town. As you are aware, yesterday we had incidents where six young men lost their lives in the hands of criminals. And these are criminals, these are bandits that cannot be allowed to operate and to take away people's life. To this end, the security apparatus have been instructed to deal firmly with these criminals. We are going to enhance security. We are going to enhance beats and patrols within the town. There are a number of measures that we have agreed on issues that we think are contributing factors to the insecurity. And the governor have alluded to those issues. We will work together to implement the decisions that we have reached at here to ensure that we have a secure environment where people can go about their business without fear or favor. The criminal elements that were involved in the heinous act yesterday, the security operators are under firm instructions to ensure that the concerned persons or criminals are brought to book, and that is going to be done within the shortest time possible. Thank you.